laba qof haddii shahaado noo wada keenaan qofka shahaadada iskuul neersinka sitaa ayaan kaga kalsoonay 200% qofka aan meelaha kale shahaado kale ka sita galaaskii 15aad ee dibloma neersan oo dib u habayn iyo hagaajin iyo qurxin ku sameeyay galaasyadii uu ku bilaabmay college-kani xariga ayaanu ka jaraynaa bismillaahi wa ala barakatillah ilaahay ardayda iyo iskuulka iyo wax walba ha noo barakay allahumma baarik bismillaah college-kan Bra College of Health Science magacyo badan ayuu soo qaatay nursing school baa la oran jiray Institute of Health Science College of Health Science baa kana leeyahay this year-na insha Allah ama sanadkana university baan qaadanaybo inuu wadankiisa wax uga tago inuu dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax reebo oo isagu inuu wax qaban karo oo tuso halka ku qoran waa groupkii 15aad ilaa 800 iyo dheeraad bay tiradana ku noqonayaan inta dibloma ku baxday inta degree ku baxdayna 200 oo kale weeyaan inta umulisa ku baxday waxa weeyaan ilaa 600 500 bay gaarayaan inta trainina kale ku baxday ayaa iyaduna fara badan waxa soo socday iyaguna isbitaaliyadii iyo takhasusaadkii gaarka ahaa oo aan sameyn doono biidmilaahi kariim labaad xariga ka jarno qaybtan iskuulka waa qaybtii asaaska bilowga u ahayd labadan qol ee soo jeeday iyo intan barandadan oo ay ardada dibloma ee ku jirta muxuu ahaa groupkii 15aad oo imika maraya senior weeyaan waa groupkii waxay marayaan semester 5 ay iyagu iskood intay soo abaabuleen garteen inay dib u repair gareeyaan oo dib u qurxiyaan iyadoo aan cidna aanay maaragtay hawsha kala qayb galin maamul iyo macallimiintoona aanay la ogeyn anagana mafaashaadna kaga dhigano saaka markaan nimaan ugu nimi iyagoo meeshii dib ma sha Allah quruxda sameeyay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iskuulkan waxa weeye iskuul taariikh leh Soomaaliland ku sutan yahay siiba tog dheer ku sutan yahay waa iskuulkii maxaan ilaa markii la bilaabay change ku sameeyay isbitaalka waxa kamid ah iskuulkii aan ka baxay weeye maxaan ilaahay change ku sameeyay gruubkii ugu horeeyay ka baxay waxa ahayd iyadoo shiftiyada aan caadi loo soo gelin si wacan u manage gareeyay maxaan ilaahay ilaa maanta ilaa today sidii buu isbitaalku markaa hawshiisa u socotaa waa iskuul taariikhda aad iyo aad ugu suntan maamulka iskuulka iyo maxaan idhahdaay ugu horeyso Faadumo aad iyo aad baan u hambalyeelayaa macallimiintii dhammaantood maamulka xigeenka dhammaantood iyo macallimiintaba aad baan u hambalyeelayaa waayo had iyo jeer waxa ka soo baxa arday aad iyo aad u dhisan akhlaaqi ilaahay ba mahad leh I'm so happy to see all these students. They are very motivated. They have been working hard to look after their school and also to make the most of the opportunity to learn from the foreigners. We've had Laura, a nurse midwife who has taught many classes, and all the students have been really motivated. We're Dadalian, and we had physiotherapy from Renee, a children's physiotherapist, and Terry, an adult physiotherapist. And I think the students, they learned a lot. And now they will go and do it in the hospitals, in the MCH, in physiotherapy clinic. Waxaan rajaynayaa Burca in horumarin inay marayso inay sii wado sidoo kale caafimaadka bulshada oo dhan inuu kordhiyo caafimaadka dadka xanuunsana inay nolol fiican helaan. Sciences College and to meet the students and the teachers. I love teaching lots of different classes, nurses and midwives. I've learned from them, so it's been nice to learn some Somali and it's been lovely to teach. Thank you for having me. waxaan maanta qabanay barnaamij contribution ah oo galaaskayga aanu dib u update garaynay anagoo ah groupka 2025 ee imika seniorka waxaan rajaynaynaa ardayda college-ka dhigata inay barnaamijka ku dayasho ahaan ayaan u sameynay marka in ardayda dhiiri galino iskuulku waa iskuulkaygii activity labaadna waxa weeyaan to appreciate and thanks the team that they came from Australia
that we lead in. We thanks for Gloria. She's long time the member of us. She trained one batch of the physiotherapists that are working in the region in long time. We thank her. She's member of us in our college. We appreciate also the Laura, Renee, and all team that they visit from us. We welcome and we will appreciate you. We will hope to be continue for our collaboration. Thank you very much for the time that you will give us. That is 2 weeks together. Thank you very much, all of you. And ardaydana waan u mahadnaqayaa. And iyaguna de tusay soo dhaweyn iyo weji wanaagsan. Inta de martida inoo timi. Waxaan kaloo u mahadnaqayaa activity-ga saddexaad. We have third activity, a midwifery diploma. They make also nutrition demonstration for local food to show community how they prepare the food, nutrition food with their children with local food and cheap price. taana waxa weeyaan inay umulsooyinka iyo dadka caafimaadka baraan cuntadeena dhaqanka ee wadankeena taala oo qiimo jaban leh sidii loo karin lahaa sidii loo diyaarin lahaa sidii hooyooyinka loo bari lahaa cunto jaban oo ay heli karaan oo loo kala oo waliba ay marti qaadeen hooyooyinka qaar kamid ah waa activity-geena saddexaad ee aynu maanta qabanaynay waxa kale oo ay ku dareen inay casuumaan lecture-alkan ama martidan inala joogtay taana way ku mahadsan yihiin aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa hablaha midwifery-ga iyagana sacabka loo garaaco teamkeenana we appreciate. Thank you very much for your collaboration, for the time that you give us for our student and for our community. Gloria also, the last 2 weeks she was making training and activity with the physiotherapy, physiotherapy. I ka shaqeynaysa with the poor community and the disability children and our adult people. So we will cover all this activity. aad iyo aad baynu iyadana ugu mahadnaqaynaa. Waxaan mahadnaqayaa 𝗂𝗵𝗵𝗵𝗵 way wana soo dhaweysay sidoo kale 𝗂𝗵𝗵𝗵𝗵 iyo Maxamed Umar Yusuf dad badan way caawiyeen. Thank you to also Laura and Renee and Terry. To be honest, I didn't do anything. It was them. They were doing all the teaching, and so you need to thank them. They sacrificed their time, their money. They came away from their families to come here and teach you. So I hope that everything that you have learnt in the past 2 weeks you will use, you will remember, and you will help the people around you. To the students, I'm so impressed. You are learning in a second language, and that is not easy. And so I'm so pleased that when you learn and it comes to the practical, that you can remember and that you can show me that you have understood. So well done. Keep studying hard. Keep studying hard so that you can be good nurses and midwives and that you can show good patient care, good patient-centered care. And so I think you will go far. Thank you for sharing your skills to our children and students. Yeah, we are very happy for that. sidoo kale inaad iskuulkiinii inaad wax ka qabataan oo idinkoo waliba aan maamulkiinii ogeyn aad rinjiyeyn iyo qurxin ka samaysaan iyana waxa weeyaan waxay tusaysaa markaa muwaadinimada iyo lexajeclada aad u haysaan goobtii aad wax ku dhiganayseen waa dhaqan wanaagsan waxay taasina mara ka tahay markaa hogaaminta iyo barbaarinta maama 𝗂𝗵𝗵𝗵𝗵 adigana waa ku ducaynaynaa maamo community-gu haddii ay ogaadaan roolka ay ku leeyihiin waxqabadka runtii way ka badanayaan roolka maanta hay'adaha kala duwan ee waddankeena la jooga ay nagu leeyihiin reer Burcana waxaan ku bartan ku aqaanaa xagga wax wada qabsiga runtii aad bay ugu dheereeyeen waan ku amaanaya marka reer Burcana layaana reer Hargeysa heesa u ogaado arrinka labaad ee runtii aad ugu faraxsanay waxa weeyaan dadka banaanka inooga yimid halkan u yimid inay inala wadaagaan cilmigoogii iyagoo aan lacag inaga doonahayn iyagoo aan inaga doonahayn wax kale daraaddeed inaan u mahadnaqnaano waa laga maarmaan. Really I'm very proud that you came here to share your skills and knowledge
to our young students in Pro School, Health School. When I entered the class, I thought that today there is a wedding when I saw Laura and her husband. And I'm requesting, make today your anniversary of wedding. Because the way you are wearing or dressing is very beautiful. Okay? The other point is that our developing country usually encourages every foreign people, every person who is coming from outside, who is eager to give information and knowledge to our children, our students, and even our health staff working in the hospital and in other areas. So that, thank you very much. Nursingka la jeclo badan ba aniga iga haysa isku ahaan. Waayo school nursingku waa halkii wasaaraddu ku tiirsantay. Laba qof hadii shahaado noo wada keenaan, qofka shahaadada school nursingka sita ayaan kaga kalsoonay 100% 200 qofka aan meelaha kale shahaado kale ka sita. Markii koowaad aan idhi horena waan u idhi waana runtay. waayo waxaan ogahay qaabka leedin tababaro, qaabka leedin barbaariyo iyo Faadimo Cismaane Ilaahay khayr ha siiya halkan idin joogta oo maanta Ilaahay inta cimrigeega ka hadhay aan aaminsanahay inaan halka idinka hor dhaqaaqayn intuu Ilaahay baranay idin dhiibaysa.